waxyaalihii gaamkiina galay inaad ka gudubtaana laydinka rabaa oo wanaag iyo sharaf aad soo heshisaan in allaale intii idin wax un ka geysatay tababarkan nooc walba leh hadduu tababar yahay hadduu kharash yahay hadduu talo fikir yahay intii wax ka geystona waa u mahad celinaynaa waxaa kaloo maanta nasiib ku leedihiin waxa la dhagax dhigay xaruntiina yaa la idin dhagax dhigay oo maanta oo taliska noqon lahayd runtii aad u nasiib badanaad tihiin idinka iyo kuwa kaloo lasoo tababari doono iyo kuwii hadda shaqada hayay runtiinaba marka aadan idinkaga mahad celinaynaa marka tababarkiina maanta waa idin xiran yahay saacaddan laga bilaabo booliisaa tihiin oo maamulka koonfur galbeed booliistii ugu horreysay dowladda federaalka booliis badan ay qabtaa jananaar dhinacayga taagan laakiin annaga hadda abuuraa noo tihiin maamulkanaad bilow u tihiin waxaan rajaynaynaa kuwa lagu liibaano oo falxada oo booliis badan yimaad inaad noqotaan kuwa badan oo lagu guulaysta oo dadka dhibaatada ka saara inaad noqotaana idin rajaynaynaa On behalf of SRCC and on mine, I would also like to thank the invitation to attend this closing ceremony. I take this opportunity to congratulate Somali Police Force and AMISOM Police for their joint efforts to reform the Somali Police and Regional Police Force. AMISOM mandate is to build the capacity of Somali Police by mentoring and training Somali sons and daughters to assume security responsibilities. We have 200 police officers before you that has been trained for 3 months and who are now ready to be involved with the communities and ensure that they are protected and they are safe. So this is history. We're going to have some form of protection for our people in Somalia. بليس وقف سنة